madaxweynaha Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo kaga qayb galay shir caalami ah waddanka Imaaraadka Carabta kaasoo lagaga hadlaya dhaqaalaha Afrika iyo maalgelintiisa iyo sidoo kale dhaqaalaha cagaaran waxa uu ka hadlay arrimo ku saabsan maalgashiga Soomaaliland sida ay ugu furan tahay fursadaha caalamiga ah ee ka jira iyo sidoo kale sida ay muhiim u tahay in caalamku ay dhageystaan qadiyadda Soomaaliland ee aqoonsiga su'aalaha koobaad lagu iba furay barnaamijka ayaa waxaa laga weydiiyay madaxweyne Cirro you're here, you have your invest in Somaliland. qoraal kooban oo laga diyaariyay maalgashiga Somaliland waxaana la weydiiyay halkan waxaad ku haysaa qoraal dhiirigelinaya maalgashiga Somaliland maxaad u sheegaysaa ka qaybgalayaasha goobtan ee ku dhageysanaya sidee ayaad ugu sharaxi kartaa fursadda ka jirta Somaliland What are the type of risks that they would have coming out here? I thank you very much for giving me this opportunity. I want first of all to tell you where I am from. I'm not from Somalia. I'm from Somalia. waad ku mahadsan tahay fursaddan aad siisay marka hore aan qeexo dalka aan ka imi horta kama iman Soomaaliya balse waxaan ka imi Somaliland miisaska aad fadhidaan waxaad ka heli kartaan buug diyaarsan oo ciwaankiisu yahay maalgasho Somaliland waa iridda ama albaabka laga galo geeska Afrika waxaan filayaa wax badan oo sharaxaad ah ayaa halkaasi ku qoran We in Somaliland have been a democratic country for the last Somaliland waxay ahayd dal dimuqraadi ah 34 sano ee ugu dambeeyay iyadoo laga warqabo duruufaha ka taagan geeska Afrika hogaamiyayaasheeda ayaanu dooranaa baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ee dadka xukumaya ayaanu sidoo kale dooranaa Somaliland waa wadan furfuran oo soo dhaweeya maalgashadayaasha waxaanu leenahay siyaasad furfuran oo saacidaysa maalgashiga dibadda I take the liberty to take the chance to thank DP World, which made fursaddan aan uga faa'iidaysto inaan u mahad celiyo sharikadda DP World taasoo samaysay maalgashiga ugu ballaaran ee ka jira Somaliland isla markaasina casriyeysay dekedda Berbera intaasi oo kaliya kuma eka maalgashiga DP World balse waxay hirgelisay aaga ganacsiga xorta ah ee ka caagan cashuuraha iyo dariiqa muhiimka ah ee Berbera corridor kaasoo ku xidhma dalka Ethiopia oo ay ku nool yihiin 140 milyan oo qof Berbera iyo guud ahaan Somaliland waxaan oran karaa waa dhulka fursadaha waa dhul dihin dhinac kasta oo adeegtaba hadday noqoto adeegyada beeraha macdanta cisbitaalada dhaqaalaha badda dalxiiska hoteelada tamarta cagaaran iyo qaybaha kale ee laga yaabo inaad ka fakaraysaan dhammaan way idin furan yihiin waanad mahadsantihiin all sectors are open in Somaliland. madaxweynaha Somaliland waxaa la weydiiyay muhiimadda dhanka istiraatiijiyadda ee dekedda Berbera ay haysato inkastoo dhawaanahan la og yahay mashaakilka ka taagan Baabalmandab iyo xeebaha Yemen ee ku dhow gacanka cadmeed hase yeeshee Berbera maxay taasi kaga duwan tahay ayaa la weydiiyay Countries together and don't maybe see it as just one big Gulf of Aden and Bab el-Mandeb security risk, whereas I think it's a little bit different. Well, I think Berbera as a port has a history. madaxweyne Cirro ayaa ku jawaabay dekedda Berbera sooyaalka dunida waxay ku leedahay taariikh guuna oo ay garanayaan badmaaxayaasha dunida haddii ay ka soo jeedaan Shiinaha Iiraaniyiinta Cumaaniyiinta Imaaraadka Yurubiyaanka sida Isbaanishka iyo Boortaqiisku waxa ay hayaan qoraallo ku saabsan Berbera oo muujinaya inay ahayd xarun la macaamisha isu socodka badaha ee gobolka sidoo kale Somaliland waxay leedahay xeeb dheer oo 850 kilomitir ah taasi oo ku sii jeeda gacanka cadmeed halkaasi oo leh muhiimad istiraatiijiyadeed oo dunida oo dhan muhiimad iyo micno weyn ugu fadhida And it is important for the world trade. And maybe 40% of the world trade goes waa khad u muhiima ganacsiga adduunka waqti xaadirkan ilaa 40% ganacsiga adduunyada ayaa hormara badda Berbera sidaasi darteed muhiimadaas ayay leedahay Berbera waana sababta ay soo jiidasho u leedahay waxaan filayaa hogaamiye kasta oo caalamka ka arrimiya iyo ganacsade kasta oo dunida ah Somaliland muhiim ayay u tahay marka ay noqoto nabadgelyada badda iyo muhiimadda istiraatiijiyadda and I can claim myself I am the only elected Somali leader. No other Somali leader is elected. Whether he's in Mogadishu
whether he's in Puntland, whether he's in Jubaland, whether he's aniguna waxaan sheegan karaa inaan ahay hogaamiyaha kaliya ee Soomaaliyeed ee dadkiisu cod ku soo doorteen kama jiro meelaha kale haddii uu joogo Muqdisho, Jubaland ama Puntland ama meelaha kale. madaxweynaha Somaliland waxa wax laga weydiiyay arrimaha aqoonsiga ee Somaliland ay raadinayso muddo ka badan 30 sano waxaana su'aashaasi nuxurkeedu uu ahaa ma dareemaysaa inaad u dhowdihiin inaad heshaan ictiraafka oo jihadiisa ku socotaan. Are you any closer to getting there? You know, there seems to be very little movement in that direction. Well, I want to remind all the audiences that Somaliland became independent as a sovereign country. waxaan doonayaa inaan idin xusuusiyo Somaliland waxay madax banaani heshay oo dal madax banaan ay noqotay 26 Juun 1960. xilligaasi gobonimo may helin Muqdisho, Djibouti, Eritrea, Kenya, Uganda iyo xitaa Imaaraadku gobonimo iyo madax banaani midna ma haysan. Eritrea was not independent. Kenya was not independent. Uganda was not independent. Even UAE was not independent. We have joined Somalia voluntarily. balse xilligaasi waxaanu si mutadawacnimo ugu biirnay Soomaaliya sababo badan awgood waxaanu mar kale go'aansanay inaanu madax banaanidaasi la soo noqono 1991 18 May. adduunyada waanu u baaqaynay ilaa 1991 aniga laftayda 18 May 2025 waxaan dambaalo badan u diray madaxda caalamka oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, madaxweynaha Imaaraadka Sheikh Mohammed bin Zayed, Hassan Sheikh laftiisa, madaxweynaha Djibouti, ra'iisul wasaaraha Ingiriiska, ra'iisul wasaaraha Ethiopia, madaxweynaha Faransiiska iyo madax kale. mana jirto cid ilaa iyo hadda jawaab aanu ka helay. taasina waxaan dareemayaa inaanay cadaalad ahayn. And no one has responded today, until today, as I know. We feel unfair because we have a history, our case. waxaan rabaa inaan idhaahdo aqoonsiga Somaliland waxa uu leeyahay taariikh uu kaga duwan yahay kuwa kale. waxaanu qabnaa rajo weyn in qadiyadda Somaliland la tixgelin doono. waxaan dhiirigelin u muujinayaa saraakiisha sare ee Mareykanka ee riixaya qadiyadda Somaliland gaarsiiyayna marxaladii ugu sarreysay ee suuragal ah. waxaan sidoo kale bogaadinayaa xildhibaanada ku hawlan aqoonsiga Somaliland ee ka tirsan baarlamaanka UK. waxaan kale oo dhiirigelinayaa dadkii aan la kulmay intii aan socdaalka ku marayay dalalka dariska ah ee Kenya iyo Djibouti. waxaanan rajaynayaa ugu dambayn in Somaliland sida ugu dhaqsaha badan uga mid noqon doonto dalalka caalamiga ah mar dhow. Very soon will be a member of the international club. Very soon. su'aal kale oo laga weydiiyay arrimaha burcadbadeeda geeska Afrika ka jirta inkastoo aanay ka jirin xeebaha Somaliland. balse waxaa la su'aalay madaxweynaha Somaliland faham darrada mararka qaarkood soo wajahda maalgashadayaasha caalamka ee ku dhacda marka ay tahay arrimaha Somaliland iyo maalgashigeeda iyo sida Somaliland arrimahaas ay wax uga qabatay. How do you mitigate that conception that they have? madaxweyne Cirra ayaa yidhi mar kale waxaan uga mahadnaqayaa DP World oo maalgashigeedu uu soo jiitay maalgashadayaal kale. And I can say their investment has attracted other investors. Now recently we have signed an agreement. dhawaan waxaanu saxiixnay maalgashi dhanka beeraha ah oo ay hirgelinayso sharikadda Farah Foundation kaasi oo ku kacaya ilaa $20 milyan oo wax soo saarka beeraha la xiriira. In general, I think the greatest misconception is that for the investors maybe they cannot differentiate between Somalia and Somaliland. maruu ka hadlaya arrimaha ay khalad fahmaan maalgashadayaasha caalamka waxa uu ku tilmaamay madaxweyne Cirro inay ka mid tahay in mararka qaarkood ay kala saari kari waayaan ama ay isku khaldaan Somaliland iyo Soomaaliya. waxaana uu sheegay inaanay Somaliland ka jirin burcadbadeed wax kiisas oo la xiriirana aanay dhicin sidoo kalena aanay khatar amni ka jirin gudaha Somaliland meel kastana ay mushaaxi karaan maalgashadayaashu. qof kasta oo tagay Hargeysa oo haddana tagay Xamar ayaa garan kara kala duwanaantooda. waxaa laga yaabaa marka aad Muqdisho tagto inaad u baahato ilaalo amni oo gaar ah balse Hargeysa iyo Somaliland uma baahni taas. maalgashadayaasha iyo ajaanibtuna waxay helaan nabadgelyo buuxda. In Somaliland, it is safe.
It is free. It is friendly. They can come. They can invest. They can transfer their money easily. Somaliland waa meel xora oo ay ka shaqaysan karaan. haddii ay maal gashadaan Somaliland lacagtooda ayay ku xawilan karaan si buuxda oo nabadgelyo ah. Xuquuqda maalgashigana waa ay ka helayaan iyagoo maal gashanaya dhinacyada kala duwan ee dihin oo ay u furan yihiin maalgashigoodu. All sectors are open for investment. No restriction.